بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا جنال كيني SMCC. ما أنت وحن كهد لنا داوينك يا أوركا. هويادو أنت أي أوركا لا هاي. وصدن إسجال أسبوع أما سجال بال. حلي جاسنا أنت أي كوكو جرت هويدا كمان مارمي كرت الداوين. بس وحاجر داوين هدي أي قادة أنا لهين وحسا من عاف ما درا أو كو إيمان كرتو عنق أن ولي دلان. daawooyinka loo ogol yahay oo aan lahayn wax saameyn caafimaad darro ah waxa kamid ah antibiotic oo loo yaqaano daawooyinka liiqaanyada ama labalabada. labo daawooyinka xanuun baabiyalka ah gaar ahaan paracetamolka oo kaliya. waxaa jiro daawooyin la isticmaalo xanuun baabi'iye oo aysan cuni karin hooyada xilliga ay uurka leedahay sida aspirinka. antibiyootikada daawooyinka qalajiyaasha ama bakteeriyadayaasha oo ay hooyada qaadan karto waxaa kamid ah amoxicillin. daawooyinka waxyeeleeya cunuga aan wali dhalan waxaa caafimaad ahaan loo yaqaanaa tetragenic drug. waxa ayna ka gudbaan xariga isku xira hooyada iyo canuga aan wali dhalan taasoo loo yaqaano xariga xudunta cunuga. xariga xudunta cunuga waa mariinka nafaqada ay u gudbiso hooyada cunuga ku dhex nool ilma galeenka. daawooyinka ka gudba xariga xudunta waxa ay waxyeelo caafimaad dar u geystaan cunuga aan wali dhalan. waxaana kamid ah waxyeelooyinkaas kow waxa ay yareeyaan qaarkood korriinka cunuga ku dhex nool ilma galeenka. labo waxa ay keenaan saameyn caafimaad darro ah kaasoo uu kasoo kabsan waayo cunuga inta uu nool yahay. waxa ay cunuga ku keenaan adimo la'aan. qaarna waxa ay keenaan guud ahaan cunuga inaan weyno dhimashada cunuga ilma galeenka dhexdiisa. waxaa sidoo kale ay keenaan qaarkood cunuga oo ilkihiisa jaallo noqdo. daawooyinka qaar waxa ay naafeeyaan maqalka cunuga. kuwa kalena waxa ay keenaan shaqada maskaxda ilmaha oo hoos u dhac ku imaado. daawooyinka dhibaatada ba'an leh xilliga uurka waxaa kamid ah barbitol oo ah daawada loo isticmaalo qalalka, warfarin oo ah daawooyinka loo isticmaalo xinjirowga, aspirin oo loo isticmaalo xanuun baabiyaal iyo streptomycin oo nooc kamid ah daawooyinka lagu daaweeyo infekshanka qaar. halkan kuma soo koobi karno daawooyinka ee hooyada xilliga uurka leedahay waxyeeleeyo, balse waa tusaalooyin oo kali ah. waxaan hooyo walba oo uur leh ama nuujinaysa waxaan ugu baaqaynaa inaysan cunin daawo aan dhakhtar u soo qorin ama aysan la kaashan sarkaal caafimaad. mahadsanidin.